aaway kaalintoodii maxaa sababay in miiska khilaafka lagu xalinayo aysan soo fadhiisan dhinac ka mid a dhinacyada laga xaaltamayo beelweynta mudulood yaa u diidan inay matalaad ku yeeshaan waanwaanta khilaafka siyaasadeed ee dalka. aaway madaxweyne guudlaawe, aaway cumar finish, maxaa kaalintoodii loo sii waayay imaamka, ugaaska iyo boqorka, aaway wasiiradii federaalka, xildhibaanada iyo sanataradii, maxaa looga qayb geli waayay wadahadalada dhaqanka iyo siyaasiyiinta mudulood. xogta qarsoon ee laga qariyay ayaan ku kashifayaa. 2 maalin ka hor markii uu fashilmay wadahadalkii laga dhex waday Farmaajo iyo Rooble, waxaa hoyga uu Muqdisho ka degan yahay gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee aqalka sare Abshir Bukhari ka dhacay kulan u dhaxeeyay Muuse Suudi Yalaxow iyo xubno uu hogaaminayo oo metelayay beesha Abgaal iyo garab kale oo iyaguna metelayay beesha Habargidir. ujeedka kulankan ayaa ahaa cabasho ay ka qabeen beesha Abgaal dhanka Habargidir, taas oo ku aadan sida ra'iisul wasaare Rooble uu damcay inuu geeyo kursiga taliska Nisa xubna ka soo jeeda beesha Habargidir oo ay ku doonayaan in lagu bedelo Yaasiin Fari oo hadda xilka ku fadhiya kana soo jeeda beesha Abgaal. Muuse Suudi Yalaxow iyo xubnaha uu hogaaminayay ayaa ku dhaleeceeyay beesha Habargidir garab istaag la'aanta wasiirka cusub ee amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur iyo damaca beesha Habargidir ku doonatay taliska Nisa. kulanka oo su'aalo lagu weydiiyay senator Cabdi Qaydiid iyo wasiir Fiqi oo metelay dhanka ra'iisul wasaare Rooble ay xogaha qaar waxa ay sheegayaan inay ka gaabsadeen, sidoo kalena ay bixin waayeen jawaab qancin karta dhanka xubnihii uu horkacayay Muuse Suudi Yalaxow. wararka qaar ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan inay ku eedeeyeen madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Qoorqoor inuu ka danbeeyay dalabka cusub ee ra'iisul wasaaraha ee taliyaha cusub ee Nisa ee ah in la geeyo nin Habargidir ah, taa bedelkeedana ay ka tanaazulayaan kiiska Ikraan Tahliil, magacaabida Cabdullaahi Maxamed Nuur iyo Bashiir Goobe intaba. sidoo kale waxaa laga soo xigtay inay raali ka ahaayeen xubno ka soo jeeda beesha Abgaal oo xurguf xildhibaanimo ay kala dhaxayso Yaasiin Fari, doonayana inay ka ilduufiyaan kursiga beeshiisa oo uu doonayo Yaasiin Fari. waxa ay raali ka ahaayeen xubnahaasi in meesha laga saaro taliye Yaasiin si loo dilo hamigiisa siyaasadeed, waana nin dhalinyaro ah Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Fari. aaway kaalintoodii maxaa sababay in miiska khilaafka lagu xalinayo aysan soo fadhiisan dhinac ka mid a dhinacyada laga xaaltamayo beelweynta mudulood yaa u diidan inay matalaad ku yeeshaan waanwaanta khilaafka siyaasadeed ee dalka. aaway madaxweyne guudlaawe, aaway cumar finish, maxaa kaalintoodii loo sii waayay imaamka, ugaaska iyo boqorka, aaway wasiiradii federaalka, xildhibaanada iyo sanataradii, maxaa looga qayb geli waayay wadahadalada dhaqanka iyo siyaasiyiinta mudulood. xogta qarsoon ee laga qariyay ayaan ku kashifayaa. 2 maalin ka hor markii uu fashilmay wadahadalkii laga dhex waday Farmaajo iyo Rooble, waxaa hoyga uu Muqdisho ka degan yahay gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee aqalka sare Abshir Bukhari ka dhacay kulan u dhaxeeyay Muuse Suudi Yalaxow iyo xubno uu hogaaminayo oo metelayay beesha Abgaal iyo garab kale oo iyaguna metelayay beesha Habargidir. ujeedka kulankan ayaa ahaa cabasho ay ka qabeen beesha Abgaal dhanka Habargidir, taas oo ku aadan sida ra'iisul wasaare Rooble uu damcay inuu geeyo kursiga taliska Nisa xubna ka soo jeeda beesha Habargidir oo ay ku doonayaan in lagu bedelo Yaasiin Fari oo hadda xilka ku fadhiya kana soo jeeda beesha Abgaal. Muuse Suudi Yalaxow iyo xubnaha uu hogaaminayay ayaa ku dhaleeceeyay beesha Habargidir garab istaag la'aanta wasiirka cusub ee amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur iyo damaca beesha Habargidir ku doonatay taliska Nisa. kulanka oo su'aalo lagu weydiiyay senator Cabdi Qaydiid iyo wasiir Fiqi oo metelayay dhanka ra'iisul wasaare Rooble ay xogaha qaar waxa ay sheegayaan inay ka gaabsadeen, sidoo kalena ay bixin waayeen jawaab qancin karta dhanka xubnihii uu horkacayay Muuse Suudi Yalaxow. wararka qaar ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan inay ku eedeeyeen madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Qoorqoor inuu ka danbeeyay dalabka cusub ee ra'iisul wasaaraha ee taliyaha cusub ee Nisa ee ah in la geeyo nin Habargidir ah, taa bedelkeedana ay ka tanaazulayaan kiiska Ikraan Tahliil, magacaabida Cabdullaahi Maxamed Nuur iyo Bashiir Goobe intaba. sidoo kale waxaa laga soo xigtay inay raali ka ahaayeen xubno ka soo jeeda beesha Abgaal oo xurguf xildhibaanimo ay kala dhaxayso Yaasiin Fari, doonayana inay ka ilduufiyaan kursiga beeshiisa oo uu doonayo Yaasiin Fari. waxa ay raali ka ahaayeen xubnahaasi in meesha laga saaro taliye Yaasiin si loo dilo hamigiisa siyaasadeed, waana nin dhalinyaro ah Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Fari.